Kayga waxa la yiraahdaa gurdid wuxuu ka warrami doonaa ama uu ku soo koobi doonaa dunida saddex marxaladood mid waa sababta koowaad ee magaca xambaarsan waa sababtii gurdid ama waa sababtii guurka loo diiday qodobka labaadna wuxuu ka warrami doonaa dhaqankii Soomaaliyeed uu isbedelay iyadoo loo aaneeyo dumarka dhaqankeeda ka tagay sababta keentay in dhaqanka laga tagayo inuu xambaarsanaan doona dunida gabayga waa inaha uu ku fadhiyo gabayga barnaamijkiisa wuxuu ka warramayaa dhaqanka isbedelay inuu mushkilad ka weyn jirto oo isla gabayga ayaa ku xusi doonaa in dhaqanka isbedelay waxa uu ku xusan beedadka gabayga waa garoof oo ma laha yaana wax saaytiiga ma laha laakiin mushkiladda u weyn ee aan ka baqayaan ka deeyo waxa tahay sinjiga Soomaaliyeed uu guuro gurdidu wuxuu ku bilaabmayaa sida tan intaan dhabeeyay soo guuriyeen galiyay sooyaalka inta aan ka gaabsaday martida leeyla garanayay goobaado toosiyo intaan gacanta ku haadshay u gurmada dhulkeena intaan mariyay geeraaro danta guud loo wada buntada taliyo geedeeye godadaan hujuumiyay taxaha waaye garansiiyay ka dibreysay maayo godkana gacan miyaan jeexday gurdid miyaan ugu furan garab salaaxay geediga miyaan carro dhawan diisha hadalkayga miyaan geesi Soomaaliyeed diiday gogashiisa erayadan ka gaabsan lahaa faafay galabtoona idinkay falaanfalay bulshada qacatay laabtiyo mar haddaan u soo galay martida golaan la joogo waxba yaana kala goynta gudaha aan baano dhigtu way guwantoo gareys wadada iyo xeere hablihii guntiinada xidhiyo boqor la googooska weli goobadana xishood way ugu ayaanay marka dhaqanka wada goysay hayla wada beertay markuu madaxii wada goojeed gaalka daba raacday gasiin iyo waxaan markaad gurina aad haysan gaajada waxaan kaga ganay loogu garanayay dekadaha galbeedku inta gacanta ay hoorsan kuma iyo sunaha la ku geeriyo la beegsan ninka dawladda leedahay ninka bulshada ugu deeqay soo inaan buugsada ma aha gaaranadeedu erayadan ka gaabsan lahaa faafay galabtoona idinkay falaanfalay bulshada qacatay laabtiye mar haddaan soo galay mutida galana la joogo waxba yaana kala goyn tixde gudaha aan baano garbasaar hablihii qaadan jiray ee la wada goobay qof hablihii ahaan jiray raguna bay ka bixinayay waxay qiimo gaareen hablihii guudii jariweeyay sidii aargan taalqada hablihii loogu wada goohay noocii halmaa galo hablihii loogu wada gaaxday hablihii la wada goobay go'yo laga joogay waxa guud ka jiray hablaan galiyay sooyaalka gayaan iyo ragii gursan rabay gurina geynay hablihii warqadaha lahaayeen ragii gursanayay ayaa beenahaasi bal kuwa madaya gayaan iyo ragii gursan rabay gurina geynay adiguna gabadha sagtaa guura bahalayne gacaliya hablihii loo dadgalay laguna guuxay diyaarada ayaa joojiyay garaacla muuqoode dadka garbaha qaadan baa ugu gareeyay waa bilaash kubtahayadu intaad beertay geedkeeda dhaqanka goblamay waa garoof oo gun mala dheere waa bilaash kubtahayadu intaad beertay geedkeeda dhaqanka goblamay soo lafta qoorta uma gaaban erayadan ka gaabsan lahaa faafay galabtoona idinkay faraanfalay bulshada qacatay laabtiye mar haddaan soo galay martida gorina la joogo waxba yaana kala goyn tixde gudaha aan baano dhaqan waa la gaasiray ragiyo dumarka geeskiyo mid waliba dhankiisuu gubuguday xumaanteeda gabashiya intaa toos ayaa lagu gudaalayay gabashiya intaa toos ayaa lagu guhaadshay gabalaha kuwii lagu dhigaa lagu gulaalayay gabaal iyo horaba waa goblamay dhaqankii guuleeyay hidaha iska diyay waa garoof oo gun mala dheer ah guulaamo noocid hablihii loo joogay ee gurada wiilkinku sidii gooriya aleyba gotiyo albaan uga baqa guraca sumayreeda idinkoo degan yaa si jugo guura waasigada inta ganaaday Soomaaliye toos lagu guuriyo gumaysiga gabnayo ka baxa gayaxa taagtiisa waa ka garaadkin hato galala faashiye war gumeeya oo gaalka jara wiidan guraya oo go'ayo frashkana u naca uu goblanaya hadii kala sidii goosan jabay gooni ugu heesa oo gulanma yeelay sidii nabarka goox gabayga gurdidna intaas ayuu naga yahay. Assalaamu calaykum.